waxaan nahay wahdiga dugsiyada فصل كالحاد مادة علم المشهدة ومعلم القصد عشان كده ما نقول بسبب هي توبيرا مانتو حتى توبيرا مانتو حوالي توبيرا حتى كثر صدق التوبيا يعني هي توبيرا يحل يجيب بيستي يوم يراس دولة الصغيرة ولا الصغير ذلك التوبيا سنة كمرقها الصلاة ولا يقوم يسرعش سنة كمرقها الصلاة ولا يقوم يسرعش التوبيا وحكنا وكان روح على الصغير دولة عصب أو كذا بيصير دولتين اللي يجيبوا بيسيجا أما اللي هراء دولة عصب وكذا بيجي إثيوبيا واحد عليه نظام كفضل على كفصل على كل أقل يسرعشن نظام كفضل على واحد لهذا مع الدولة ولاجها مع الدولة دحين ولاجها لكن أي دولة والدولة الأولى اسمهم كيسة وصار كيسة أولى لكن أي كذا حيصل هل دولة واحدة كذا حيصل أي واحد لهذا كفضل على تصارع بصوا قبلنا دولة كالصومالية أو كلا إما الجوالات بدل عم فضل عمام الجوالات الفرع بدل اللي هي واحد لهذا فضل ودستور كذلك آيات دستور كذلك لوجهه أي وقحي نظام كفضل على واحد قحي دستور كذلك لوجهه أما وضلك لوجهه وضع لها أي واحد وقحي أو دولته أي كل ده مسوق معه كفضل كل سجاد ولا يشان يسجاشن حسبية المعارف كأيام بالليل إن كاقي الجران دور الشر يطلع حسبية المعارف كمعارف على الهدان حسبية الوصل هي أنا دولة وصل يسقطه حلقة معارضة إلى جد دولة التوسيان يقصد المعارضة أيوة كابس الشيء مثلا معارف على الهدان ولها أوقع بسنة حسبية الدولة أوقع بسنة حاجة توسينتا يدرسون هنا عشان أوقع بسنة دولة معارض marka waxay ka soo jeesteen doorashadii dalka waxay diideen doorashada inay ka qayb galaan sayay sheego joogayaasha caalamiga ayaa ogolaaday natiijada doorashada goobjoogayaasha waxa la yiraahdaa dadka ka soo qayb galay ee ajaanibka ee aan wadanka ahayn ee ka soo qayb galay doorashooyinka ee la eego wadanka doorashadiisu sida ay u socoto iyo waxyaabaha meesha ka dhacaya dadka la ogaada dowladda ayaa la yiraahdaa goobjoogayaasha caalamiga waxa weeye caalamiga waxa la yiraahdaa kuwa ka yimaada xagga dowladaha ee aan wadanka gudihiisa ka imanin ayaa waxay ogolaadeen natiijadii ka soo baxday doorashada sanadkii 2004 marka sanaawi ayaa loo doortay ayaa dowladda cusub ayaa dowladda Itoobiya madax ka ahaan jiray xilligaas marka sanaawi waxa uu dhintay 2012 sanadku markuu ahaa 2012 ayaa marka sanaawi uu ka dhintay ama uu dhintay wadanka Itoobiya taladiisa ka baxay waxaana ra'iisul wasaare cusub loo doortay حيث ما يمثل أيام كم ضمن كان رئيس الوزراء عصب أو وظف رئيس الوزراء كذا. إثيوبيا waxay hadda ka kooban tahay 10 ismaamul goboleed waxay ka kooban tahay 10 ismaamul goboleed ama 10 maamul goboleed maamulka Itoobiya wuxuu ku salaysan yahay wada tashi maamulka Itoobiya wuxuu ku salaysan yahay waxa uu raacaa wada tashi ama shuura waxa la yiraahdo hase yeeshee saxaafadda Itoobiya ma madax banaana saxaafadda Itoobiya ma madax banaana marka la leeyahay waxa weeye waxay doonayaan in soo qoraan ama waxay sheegaan in doonaan in sii daayaan ee waxa ay sii daayaan waxa dilan oo ay la ogtahay dowladda sida saxaafadda in dowladda ka jirta ay saga muuqan waxa uu sheegaan saxaafadoodu uma sheegto wax ma soo dayso wax dowladda soo diray oo og yahay in ay sii daysaa saxaafadda Itoobiya oo madax banaani oo haysato inay waxay doonaan qoraan ama waxay doonaan sii daayaan maamulka badankiisu wuxuu hoos yimaadaa dowladda dhexe maamulka badankiisu wuxuu hoos yimaadaa dowladda dhexe oo iyada dowladda dhexe ay arrinka sii dayso maamul goboleed walba sida uu doono isagoo ma sii daayo ama uma yeelo maamulka wadanka ee waxay isugu soo ururaan ama maamul goboleed waliba arrinkiisa ugu dambeeya ku soo noqdaa dowladda dhexe halka waxay noogu yaala 5 su'aalood oo loo baahan yahay in laga soo shaqeeyo arday su'aasha koowaad waxa weeyaan goorma ayay Itoobiya qaadatay nidaamka federaalka su'aasha labaad goorma ayuu dhintay Mele Sanaawi su'aasha saddexaad imisa maamul goboleed ayay ka kooban tahay dowladda Itoobiya su'aasha afraad goorma ayaa la dhisay dowladda cusub ee Itoobiya su'aasha shanaad
goorma ayaa la qabtay doorashadii cusbayd ee Etoobiyada waqtigaas shantaas su'aalood oo ah shan su'aalood oo ka casharkeena ah ayaa laga soo shaqeynayaa arday maanta casharkeenu intaas ayuu ka kooban yahay ilaa iyo inta waqti dambe ku koobanaa. Assalaamu calaykum.